kulanti wacan dhammaanba daawadayaal meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa TV-ga caalamiga iyo raadiyaha Afrika mowjada dhirkeedu yahay 5.3 kusoo dhawaada barnaamijkeena kulamada aynu ku martiqaadno shakhsiyaad gaar ah isla markaana saameyn ku leh bulshada kulanka maanta waxaynu diiradda ku saari doonaa saameynta qalabka ku xiran taawarada isgaarsiinta maadaama ay cabasho ka muujiyeen dadweyne fara badan haddaba barnaamijka waxaa inoogu marti ah injineer maxamed ugaas cabdi injineer caadil oo ku takhasusay isgaarsiinta isla markaana haysta khibrad ka badan 5 sano injineer ku soo dhawo barnaamijka dhowhay aad baa umahadsan tahay ugu horeyn waxaad si guud inoogu sharaxdaa isgaarsiinta waxa uu yahay marka hore marlabaad waa mahadsan tahay ka mahad celinaya isgaarsiinta inta badan dadku yaqaanaan hadda dul maro isgaarsiin waxa la yiraahdaa waxa ugu fudud laba qofood yani isku kula xiriiri karaan macnaha ku wada xiriiri karaan inay ahaato mobile inay ahaato internet inay ahaato maxaa la yiraahdaa computer taas waa isgaarsiin la yiraahdaa laakiin hadda waxa focus ka saareenaa midda mobile-ka ah oo marka labada qofood kala fog aan isku meel joogin isticmaalaya qaab wireless ah iyagoo isticmaalaya universal mobile telecommunication system oo loo yaqaan UTMS ama dadka badankoodu yaqaanaan GSM oo isgaarsiinta marka telefoonada ku hadalka codka internetka intaba gudbisa taas bas leeyahay marka in telecom ku yahay iyo waxa marka diiradda saar doona duuray karaan wata isgaarsiintan iyo qalabkan ku xiran taawarada sidee bay u hawlgalaan marka hore isgaarsiinta taawarka waxa ku xiran mostly laba qalab dadka badana marka fiirso taawarka qalab wareegsan ee loo yaqaan microwave ka qayb qaata isgaarsiinta isku xiraya labada taawar ama taawarka iyo waxa la yiraahdaa xarunta dhexe waxa kale ku xiran firdhisooyinka yani GSM-yada loo yaqaano oo dhererkiisu yani sida wax mitir ilaa mitren ah dhererkiisa bandigaas kaas oo loo isticmaalo in markaas telefoonka uu gaarsiiyo signalka marka labada qalab ugu muhiimsan ee ku xiran taawarka ee ka shaqeeya isgaarsiinta mid wuxuu adeegaa shacabka midka labaad wuxuu adeegaa xarunta dhexe iyo taawarka isku xiraya marka haddaan ka soo qaado kan shacabku adeego badana yani wuxuu markaas quwadda sii kariyaa ama isgaarsiinta isku xiri kariyaa ilaa iyo 1 kilomitir ilaa iyo 2 kilomitir midka ugu dheer maximumka waxa waaye 2 kilomitir marka 2 kilomitir waxay noqonaysaa in kala duwan oo isticmaalo hertz kala duwan waxay ka bilaabaysaa ilaa 900 oo megahertz ilaa iyo wuxuu gaarayaa 2100 megahertz qofka marka telefoonka haysta taawarka meel ka fog 2 kilomitir ayuu wuxuu marka telefoonkiisa heli karaa adeeg isgaarsiinta ama microwave-ka marka soo laabto microwave-ka diishka ku xiran meesha wuxuu isku xirayaa hoos u sheegay xarunta dhexe ilaa iyo taawarka marka communication-kaas meesha ka dhacayo waa qaab wireless ah microwave-ka wuxuu isticmaalaa ilaa iyo 900 ka bilaabma waa 900 megahertz 5.8 megahertz ilaa iyo la gaaro 10 gigahertz qaar ka weyn oo jira oo long distance loo yaqaano ilaa iyo 30 gigahertz gaaraya marka qalabkaas waa qalabka marka communication-ka shacabka iyo xarunta dhexe isku xirayaan u fududeynayo in marka dhacdo isgaarsiin dabiici ah wata engineer dadyo badan waxay ka caawinayaan in taawaradan lagu xiro gudaha magaalada ee keenan saamaan caafimaad khaasatan cudurka kansarka maxaa taas kaga jawaabaysaa adiga arrintaas runtii aad u soo caanbaxday berigii dambe gaar ahaan Soomaaliya aad isla wadaagayeen arrintaas iyada ah dadka caafimaadka bartay iyo dadka aan baran intaba badanaa macluumaadka waxaa soo gudbiyay qolada caafimaadka oo dadka marka ku yiraahday kansar ayuu keenaa markay isbitaalada tagaan taasna kulay wax saameyn ah oo kansar ku keeni karo ma jiro maxaa yeelay wax walba waxay tagaan wax standard ah مثلا sida INSI hay'adda loo soo gaabiyo ah American Standard Institute ayaa baxsi gareeyay sidoo kale Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE loo soo gaabiyo iyo National Council on Radiation Protection and Measurement qoladaas baa iyagan sidoo kale saddex hay'adood mas'uul ka ah in marka la kontrolo in bahalkan awoodiisa isaameynta insaanku yeelan kariyo marka la sameeyo qalabka sidiisaba yani looma sameeynin sida in qofka markaas kansar keeno ama uu dhaawaco jirkiisa kansarka maxaa keeni kara waa wax saameyn kara si toos ah DNA-ga qofka insaanka ah marka taawarada wax ku xiran wax DNA jirka insaanka gaari kara ama gubi kara dabkiisa heerkaas ma gaarsana culimadana kulay qalabka sameeyay aad bay uga hadlaan arrinta iyada ah waxaa lagu cadeeyay
in uu yahay markaasi non ionized radiation yani shucaac aan saameyn ku lahayn insaanka oo aan jirkiisa saameyn karin DNA-gana aan gudbi karin markaasna kansarka keeni karin. kansarka marka waxaa waajib ah marka la sharxayo in markaasi qalabka saameyntiisu DNA uu gaari karo. hadduu DNA gaari karin oo chemicalka reaction ku dhici karin dareeraha qofka jirkiisa wax kansar ah oo keeni kara ma jiro. marka heerkaas maba gaarinba dadku unbaa ka waale aaminsanahay macnaha. adigu waxaa ka mid tahay dadka isgaarsiinta muddo dheer kusoo jiray, waxaa ka mid tahay dadka 4 sano iyo wax ka badan ee khibrada arrimahan ka bato. waxaana sheegaysaa in isgaarsiintan muhiimaddu waxay tahay horta taawarka iyo qalabka ku xiran. waxaa muhiimsan qalabka ku xiran. sidee bay isku keenin qalabkan ku xiran oo lagu caddayn karaa inaysan kasar keenin? okay marka horeyso waxaa isticmaalaynaa wax wireless ah. wirelesska oo fiilo la'aanta ah wuxuu isticmaalaa maxaa yiraahdaa taraddud ama frequency wax loo yaqaano. marka frequency-da kala duwan hertz oo ka bilaabma ilaa iyo laga gaaro terahertz. qolada waxa telecom-ka ah iyo isgaarsiinta fudud sida maxaa yiraahdaa marka laga soo bilaabo computerka caadiga isticmaalayno wifi-giisa waa 60 ilaa 100 hertz. waxaa ku soo xigo power lines kahrabooyinka electriga yani 50 ilaa iyo 60 hertz waaye. waxaa ku xiga TV broadcast. TV aad iminka daawanayno oo kale broadcastigiisa wuxuu isticmaalayaa waa 54 ilaa 70 megahertz. waxaa soo raaco raadiyoga isgaarsiinta raadiga asina wuxuu qaataa 520 ka soo bilaab ilaa iyo 1610 megahertz waaye. waxaa soo raaco microwave-ka hadda sheegay 3 ilaa 30 gigahertz ah. mobile phone-ka bluetooth-ka wifi-ga waxyaabahaas oo aan isticmaalayno waxay isticmaalaan waxa yiraahdo majmuucada isku yiraahdo non ionized radiation. waa radiation-ka shucaaca aan keenin dhibaatada. waxaa jira cagsigiisa ionized radiation waxa yiraahdo oo shucaacyada keena khatarta yani kuwaas oo sida nuclear-ka loo isticmaalo kale raajada la saaro qofka bini'aadanka caadiga caafimaadka loo saaro kale in dhibaato keenayso oo kale. marka hore waa wax la kala xadiday oo cilmiyin ku dhisan. non ionized baa la yiraahdaa. bluetooth-ka isticmaalaan oo kale wifi-ga oo kale raadiyaha caadi qofku dhageysto TV-ga oo kale. marka waxaas dhan baa hawada ku jiro dhibaato ma keento. waxaaba kan ka sii daran oo dhibaatada qofka insaanka u keeni karo sida qoraxda oo kale. shucaaca qoraxda ka soo baxo waa midka markaa insaanka dhibaato u keeni karo laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu markaas noogu fududeeyay inaysan soo gaarin dhibaatadeeda. dabaqad la yiraahdo layer la yiraahdo ozone oo dhulka ka sareeyo taasaa marka waxay yareysaa shucaaca korontada ee soo gaaraya dhulka iftiinka maxaa la yiraahdo shucaaceeda. marka waxa cilmiga ay ku dhisan yahay marka wax ra'yi laga dhiibto ma ahan. non ionized-ka marka ma keen wax dhibaato ah. telecom-ka iyo qalabyadaasna waxay ku xiriirsan yihiin ama ku samaysan yihiin waxa yiraahdo non ionized radiation-ka oo loo yaqaano infrared radiation. kuwa khatarta aan xaqanaysaa ultra violet yani ultra waa kuwa ziyaada ah. waa taa engineer qalabkan ku xiran isgaarsiinta ma jiraan nooc keena kansarka? qalabka isgaarsiinta ma jiro nooc kansar keeno. sabab dadka badankood markay ka hadlayaan waxaa aragnay maxaa yiraahdaa waxay focus ka saarayaan waxa yiraahdo microwave-ka. microwave-ka nina intuu fuulo towerka microwave-ku waa sida digsi ay ogyahay wareegsan tower walba ku xiran markaa fiirso qof intuu fuulo engineer ah ama technical ah wuxuu ku aadinayaa diishka kale ee ka soo horjeeda ee ku yaala dhowr kiiloomitir halka. marka ninka diishka laftiisa saaran ku aadinaya anteenada inta ishaarada ninkaas ay la gafto intuu ku raadinayo inta la gafto asee dhaawici lahayd marka intuu meesha ka soo dhaco ama kansar ku dhaco ama meesha ka soo wareero dhici lahayd. marka darteed marka ma keeni karo lana ninka meesha fuulay dhulka wuxuu ka sareeyaa marka uu yartahay waa 10 mitir waa microwave-ku u dhow. marka kaasaaba qofkii oo aadinayo ku toosinay asoo waxba dhibaato u keenin. wax walba adduunkan lagu soo kordhiya waxay soo maraan tijaabooyin. ma jiraan tijaabooyin laga sameeyay inta barada isgaarsiinta aysan keenin kansar? exactly laba tijaabo ayaa la sameeyay. tijaabada koowaad waxay ahayd waxaa lagu baroobay dooli badanaa marka shay la sameeyo ama daawo la sameeyo ama qalab la sameeyo waxaa marka lagu barooyaa waa xayawaanada kadib ayaa insaanka loo soo gudbiyaa. marka tijaabada koowaad la sameeyay waxay ahayd dooli oo markaasi loo barbardhigay in saameyn ku yeelan karta in kale. 2018 ugu dambeysay US National Toxicology Program oo markaasi Mareykan ka tirsan iyo macadka la yiraahdo Ramazzini oo Italy ka tirsan 2019 ayaa labadaas waxay sameeyeen baaritaan tijaabo ah
oo dooli ku barooweynayaan waxaa markaasi meesha kasoo baxday natiijo ah inaysan wax dhibaato keeninin midda kale waxaa kaloo lasii baaray insaanka ka shaqeeyo ama biniaadanka injineerada ka shaqeeya taawarka intaas sano ka shaqeeya taawarka fuula wixii hagaajiya caafimaadkooda ayaa la baaray iyagana waxaa la ogaaday in markaasi wax dhibaato ah oo kansar ah ama related ah inuusan jirin oo markaasi caafimaadka dhibaato u keenayo waxaa kaloo cajiib ah qawaaniinta badanaa America ka tirsan waa conton chapter chapterka 29aad qaybta la yiraahdo OSHA occupational safety and health administrationka iyo American Cancer Society intaba yani waxaa lagu cadeeyay dacwooyin badan oo maxkamadda laga furay oo noocan lagu dooday in markaasi baaritaan la sameeyo wax dhibaato ah aysan ku lahayn waxaa ugu muhiimsan hadda oo loo laaban karaa oo marjic ah American Cancer Society-ga oo ku cadeeyay in waxaan wax dhibaato ah kansar ah oo soo keeno shaqo ku lahayn tijaabooyinkaas baa daliil u ah oo WHO sidoo kale hoos timaada suurtagal ma tahay in taawarada guud ahaan isku meel isku geeyay waa wax markaa macquul ahayn midalan hada example ku siiyo haddii aad 10 qofood isku keento hal qol oo aad tiraahdo wada hadla kulligiina oo qof walba oo dhinaciisa ka hadlo marka mismaqli karaan dadkaasi jawaabto maya marka taawarka aad isku keento hal meel oo telekoomada isku yimaadaan waxa dhacay wax la yiraahdo interference kaas oo ah isdhaxgal tadaqul ah waxa arkaysa telefoonada iyo frequency kala duwan iyo isticmaalaya haddana adoo ku hadlaya telefoon waxa arkaysa kaas oo dhaxgali doono qad maxay yiraahdaa dad kale oo sheekaysanaya oo kale marka saameyn waxa jirta markaas taraddudka oo interference oo sameynayo marka waxa waajib ah in marka taawarada la kala fogeeyo sida ku macquulka ah si markaas taraddudyada iyo frequency kala duwan oo san radio wave-ka aan marka isku dhaxgalin iyo marka si loo yareeyo khatarta ka iman karta oo ah in mukaalamooyinka quality-giisa hoos u dhaco oo isgaarsiinta markaas baa isla yahay macquul maaha in marka hal taawar isku keeno horena u dhici jirta xilligii hore teknolojiyada isgaarsiinta bilaabmaysay adoo ku hadlaya telefoon waxa arkaysaa inuu kaasoo dhexgalaya telefoon kale marka sidaas loo yareeyo waxaa dhacday qalabkiina waa la horumariyey in qof walba taawar sameeyo dhulka intaas kamid ah ka qaado hay'adda isgaarsiinta qaranka ee wadan walba ka tirsan ayaa shaqo ku laha marka in arrintaas iyada ah ay nidaamiso si markaas tardudyada isdhexgalin frequency kala duwan ay isticmaalaan waana hal meel isku imaan labada taawar yani marka u dhowdahay maxay yiraahdaa frequency-gooda aad loo kala fogeeyo location ahaan marka isku dhawaashada dhibaato ma laha laakiin hal meel ma suurtagelayso dawadayaal waxaynu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed iyo dadka leh shirkadaha isgaarsiinta waxaad u soo gudbin lahayd markuu walaas bulshada Soomaaliyeed baa hadlaya dad waxa arkay isbitaalada tagay dhahay ani si taawarkan guriga agtiisa loogu soo dhijiyay ani ilmo ma dhalin qof ku dhahay ani 5 maalin hordin taawarkan si meesha loogu soo xiray taas calaaqad lama laha dhaqaatiirta sidoo kale markii loo tago dhahayaan dadka kansar ku hayo ama waxa dhibaato kaga soo gaartay taawarka isgaarsiinta dhahayo runtii iyagana aad u qaldan yihiin dhibaatada ugu weyn kansarka oo qofka laga cabsi qabo waa x-rayska yani oo iskaanka iyo x-ray raajada la saaro insaanka taas baa kaga dhibaato badan iyadana waxay leedahay waqti mucayin ah oo kooban qofka la saaro iyo maxay yiraahdaa masaafo oo dadka laga fogeeyo dhanka kale teknolojiyada qolada isgaarsiinta shirkadaha waxaa jirto inay dheereeyaan powerka decibelka isticmaalayaan microwave-ka marka ishaarada ay yaraato ama dhexdooda geedo oo soo dhex galo iyagana kulay waxaa waajib ku ah in marka powerka oo recommendation shirkadda ay soo saartay in isticmaalaan oo dadkiina kulay cabsi badan ma jirta in wacyigelinta la balaariyo bulshada loo sheego in waxaasi calaaqaad la lahayn dhawaatan usan lahayn oo la mid yahay bluetooth-ka iyo raadiyaha intaas sana isticmaalayeen aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa injineer ugaas injineer caadil oo maanta ku marti ahaa barnaamijka daawadayaal waxaan halkaas kusoo afmeeraynaa kulankeeni maanta aynu uga hadlaynay saameynta taawarada isgaarsiinta waxaana halkaasi inoogu dhan kulankeeni sidaa iyo ammaan Allah